intaa kadib waxaan filayaa hadal ii hadhay ma jiro waxaa la igu soo dhaweeyey oo keliya inaan inoo gabagabeeyo laakiin laba eray baan odhanaya waxa weeye baaqa madashu galabta soo jeedisay waa baaq aad iyo aad muhiim u ah oo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan u horseedaya nabad iyo doorasho si xaqa u dhacday oo loo midaysan yahay Soomaalidu waxay tidhaahdaa talo waa nabad waana nolol waa waxaan shaki igaga jirin muddo hadda dadkeenu inay dhibaato badan qabeen taasina ay ka timiduun talo la'aan aynaan isugu iman intaynu tashanno si fiican dalkeenna iyo dadkeenna inaan u hoggaaminno laakiin maanta baaqa halkan ka soo baxay waa baaq talo cad bixinaya oo intay naga maqan siyaasiyiintuna aan qabo inay ku soo biiri doonaan oo ay qaadan doonaan oo ayna diidayn inay Soomaali heshiis gaarto oy doorasho samayso oy madax doorato hoggaamisa oo dadkooda iyo dalkooda u naxa oo u naxariista waxaan isleeyahay abwaan la odhan jiray Yuusuf Aadan ayaa wuxuu yidhi qofkii ildheer baa dadka ugu ayaan daran waxaan lala arkayn baa isaguuna muuqdaa ahey ah maskaxda laga abaaroobay oo macnaheedu waa maxay waxa inagu jira dad arkaya dhibaatada ina hortaala laakiin aan laga akhrisanayn waxaan isleeyahay kolka maanta talada halkan ka soo baxda waa talo Soomaali u horseedi doontaa inay garato waxa sax ah iyo waxa ina hor yahay inay garato oo ay noqoto intaynu isu nimaadno oo aynu shir yeelanno aynu dooranno qofkii ku habboon inkasta oon anigu qabo erayga dalkeenna halkaa dhigay inuu yahay qabiil kaas inaynu ka baxno oo fikir aan kaga baxnayo la baahan yahay waxaan filayaa inagu fanaaniinteenna warkoodu qiimo inama leh ma dhegaysanno laakiin haddaynu dhegaysanno heesaha iyo gabayada iyo murtida kale ay sheegayaan waxaan filayaa inayna waxba inaga khaldanaadeen ya wiil hadda aan filayo inuu baydhabadaa joogo oo fanaana wuxuu yidhi in dalkeennu hodan yahay weliba dihin yahay dabayl udug ku siisa oo diiran leeyahay dalxiiskana ku wacan yahay dunidu way ogsoon tahay oo macnaheedu waa maxay inagu taa ma ogin inaan duunyo leenahay geelu door horaad yahay lo dinaahinaysiyo adhiguna ka daran yahay duurjoogtu dheer tahay dunidu way ogsoon tahay wuxuu yidhi in ciiddu dalag habboon tahay bad durugsan leenahay kalluunkuna durdura yahay dubo oo ka dhereg yahay dunidu way ogsoon tahay inagu ma ogsoonin wey macnaha meeshaa ku jira wuxuu yidhi webiyaal durdurayo bad ku daadanaysiyo dul iyo hoos khayraad digiiga
inaynu leenahay dunidu way ogsoonta waxaa degaanka keennaa gebagabadiisu waa tan waxaa degaanka keennaa dabka looga shidayaa faragelinta dibadda ah aan laynooga daynayn inay tahay daraaddood miyaydaan dareemayn waxa aan danta aan ka leehayn heestaa u soo qaata waxa weeye waa nin fanaana siyaasi ma aha laakiin ogaada siyaasad waa siyaasi dhaba oo ka hadlay siyaasadda runta ah ee dalkeenna taallo galabta waxaan leeyahay aniga hadda khudbo dheeri galabta iima taallo xilkan hadda inta yare hadda halka madashani ay dhiibtayna waxa weeye waa laygaga habboon yahay laakiin codsiga waa oggolaaday inaan kolkaas innagoo isku duuban oon iska jecelahay anigu inaynaan reer hebelayn ee aynu midnimo soomaaliyeed iyo heshiis soomaaliyeed iyo doorasho soomaaliyeed oo heshiis lagu yahay sidii aynu u gaari lahayn inaynu ka tashanno muddadaas anu dee xildoon ma ihi waa idiin sheegayaa laakiin midnimo doon baan ahay soomaali doon baan ahay kolka aada iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa haddii ayna wax kala hadhinna shirku waa inoo xiran yahay aada iyo aad baan waa inaad hubisaa halka aad ku nasanayso inay ku habboon tahay naftaada Answer Home waa halka aad ka helayso agab heer sare ah waxayna ku haysaa sidka fadhiga Smart waa fadhi raaxo dhameystiran fadhiga Dorian waxa uu ka samaysan yahay dun jilicsan iyo mid liinan ah oo aad isku bedelan karto fadhiga Vienna nashqadiisa cajiibkii taabashadiisa jilicsan sariirta Astoria waxay la jaan qaadaysaa dooqa shakhsiga jiifka Ornaldo oo si cajiib ah loogu nashqadeeyay alwaax qolkaaga siinaya muuqaal qurux badan sariirta Simena waxay macno iyo muunad ku kordhinaysaa qolkaaga jiifka kama marna halkaasi fadhiga qadada oo qayb ka qaadanaya bilicda gurigaaga Answer Home ugu hagaag guri habaysan oo kugu habboon